الحديث الثاني حديث كان اللوات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كان لبعض حالة ورنايا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الله كره لنقضيه. قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نحريس النبي قال دوشي ساعاتي وحو دحي إن المقسطين كوا عدالة سمية عند الله اللوين سبحانه وتعالى أكتيسة على منابر أيد الأحادين منابر تاسو من نور النور لغا سمية عن يمين الرحمن الله نحريس تبضن لنعيس مذق أي أحادين وكلتا يديه يمين الله سبحانه وتعالى لبديس قعمود مد والبنا يمين ومذق وي الذين كوي وي كوا عدالة سمية والله سبحانه وتعالى أكتيس أحادي كوا صفضة يا لغا حضايا الذين كوي وي يعدلون عدالة سمينايو في حكمهن حكم كود markay dadka kala xukminayaan ama ay u kala garsoorayaan iyo wa ahlihim iyo ehelkooda iyo ma wullu wixii madax looga dhigay. Marka xadiidkan wuxuu ka hadlaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegayaa in cadaalad la sameeyo fadliga ay leedahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kuwa cadaalad sameeyo indallahi Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa ay ahaadeen على منابر وحين كدل سجنهن منابر أي كدل سجنهن أو من نور لغا سميه وفضل عدو قيمة بدنوي كو عدالة سميه مركب كود الله سبحانه وتعالى أكتسي أحادين مركب لواد وحي كدل سجنهن منابر أي كدل سجنهن وميلا سرسروي مركب سدحادنا منابر تسوحا لغا سميه نور أي لغا سميه مركب أفرادنا النبي عليه الصلاة والسلام حوليه هاي عن يمين الرحمن الله نحريست بدن dhinaciisa midig ay ahaadeen ay ku sugan yihiin wakilta yadihi yaminun Allah subhanahu wa ta'ala labadiis gacmoodna waa midig weey bidix ma qabo Allah subhanahu wa ta'ala. Sidoo kale waxa laga qaadanayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu leeyahay laba gacmood oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam meeshan uu leeyahay wakilta yadihi yaminun. Sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala quraanku ku sheegay wuxuu leeyahay bal yadahu mabsuutatan weey الذين يعدلون كوا عدالة سميه أو مقسطين تا أو خير كان يفضل كان هلاي وكوي نبي يا نوشيغا صلى الله عليه وسلم كوا سحوليه الذين يعدلون وكوا عدالة سميوي وكوا عدالة كسميه حظ الكوضة يو فعل كوضة عدالة يكسميان في حكمهم حكم كوضة وحي حكمين آيان مركا يددك يكالو حكمين آيان أما مركا يددك يكالو قرصور آيان حكم كوضة يكو عدالة سميان qofna ma dulmiyaan qofna uma eexdaan marka cadaalad ay sameeyaan xukunkooda wa ahlihim iyo ehelkoodan cadaalad ay u sameeyaan ehelkooda iyo qaraabadooda cadaalad iyo wanaag ay u sameeyaan iyo ma wullu wixii madax looga dhigay. Marka muqsitiinta nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegayo dadka cadaalada sameeyo waa dadkii saddexdan sifo laga helay waa dadka ku cadaalad sameeyo xukunkooda waa dadku cadaalad sameeyo ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ma wullu wixii madax looga dhigo. Marka saddexdan sifo qofkii laga helo ama ummadii laga helo waxay ahaanayaan Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa manaabir ay ahaanayaan ay dul ahaanayaan manaabirtaas oo laga sameeyay nuur. Marka waa fadl aad u qiimo badan oo la doonayo dadka muslimiinta ama qofka muslimka inuu ku dadaalo cadaalad inuu cadaalad sameeyo xukunkiisa iyo ehelkiisa iyo wixii loo dhiibtaba inuu ku cadaalad sameeyo. qof walban waa mas'uul way sida nabiga calayhi salaatu wasalaam oo noo tilmaamay qof walba adduunkan jooga mas'uul waana la weydiin doonaa wixii mas'uul looga dhigay. Marka qofku wixii mas'uul ku yahay inuu cadaalad sameeyo la doonayaa.